waqtigii quraanku dagayay lama aqoon wax leeyahay mawlid saxaabadii nabigu intay noolaayeen waqti bay nabiga ka dambeeyeen in badan oo ayaga kamida intay noolaayeen lama aqoon wax leeyahay mawlid ardadoodii oo taabiciina intay noolaayeen lama aqoon wax mawlid quruntii saddexda ahaa aimada waaweyn ay noolaayeen lama aqoon saas daraadeed atahadda hal kelimo oo ku saabsan mawlidka arwakaase hal laga soo guuriyo imaam shaafici iyo imaam maalik iyo imaam ahmad iyo abu hanifa iyo awzaa'i iyo thawri iyo ibn uyayna arha laga soo guuriyo maxay yeelay maba jirinba wax la yaqaanay ma ahayn goormay timid culimada inta qaar kamida u qiil raadiya iyo jamaahiirtooda oo diiday waxay isku waafaqsan yihiin culimadii mu'tabariinta ah baan ka hadlay ma nin soo ruuleeyay oo hawa wadama ah laakiin culimadii mu'tabariinta baan ka hadlay rag wax u raadiyay xataa waxay rumaysan yihiin inayna saddexdii qarni midna jirin waa la isku waafaqsan yihiin laakiin wixii ka dambeeyay ay timid qolada ugu roon waxay leeyihiin waxay timid qarnigii afraad qolo kaleetana waxay leeyihiin ma qarnigii lixaad bay ku soo biirtay adduunkaba raadkeeda inaan dib u sii raaco mar raba yaa keenay waqtigu iima saabaxayo oo xidid xun bay leedahay mawlidku marka la raad qaado yaa bilaabay xididkiisu ma fiicna niman zanaadiqa baa bilaabay oo faatimiyiin la dhihi jiro culimada islaamku isku waafaqsan inay gaalo ahaayeen oo ka talin jiray maghrib al-arabi iyo masar waqti ka talin jiray nimankaas bilaabay wax jiray oo hore ma aha marka mar hadduusan horeynin hal su'aal isweydiid ruuxa caamayga ah muxuu yahay ilaahay baan idinku dhaariyay khayrka nabi maxamed ka qarsoomay sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisii ka qarsoomay taabiciintii ka qarsoomay saddexdii qarniye imaamiyadii waaweynaa ka qarsoonay ee ummadda u soo baxay qarnigii afraad khayrkaasi xagee ku duugnaa waa su'aalaad isweydiinayso sidaas daraadeed baa qodobkaasi markay mari waayeen nimanka u ololeeya mawlidka oo qodobkaasi ku adkaaday ayay intay ka wareegteen alla ka cabsi baan jirin oo alla lagama baqaye intay ka wareegteen baa waxa la bilaabay in la yiraahdo quraanku waa mawlidku ku yaala ajaa'ib war xagee kaga yaala markaas la bilaabay in aayadihii quraanka la luqunji baaro oo inta luqunta la soo qabto qaabkii la rabo loo geliyo oo meeshii la rabo loo daliishado war aayade qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu umad buhur fadhiya wa wadaad wa imam wa sheekh kutubu akhriya aayadaas mawlidka ku tusibuul wariya kaaga horeey uma baahni wax iiga horeey wariya saa ku tafsiiray uma baahni ma ibn abbas ما ابن عمر ما مجاهد ما سعيد بن جبير يا كفسري وما بباهني إلا يجا هري وركوا صول لحد مر واجي هر وعن قرنيا وحلقت دودي تشري مولود كوا بدعه هوا بدعه والقري تشري لكن وبدعه حسنه أبي كدودي تشري وبدعه لكن وبدعه وانا أكسن هالكاسي دودك قلي تشري لكن بهالشي تكتيو هذا وحيبا مريسا بدعه ما هي قرآن كاب الشيخ quraanki marka aayadihiisa in lagu ciyaaro oo caamada lagu wareeriyo oo tafsiir ayna lahayn la saaro waxaba ka cajab badan ba masaajidka la yiraahdo masaajidka sawsi maalin dhaweyd nin baa ka taagnaa wuxuu leeyahay umad baa dhageysanaysa oo u qoslaysan ninka isaga culimani buu sheeganaya quluwiga iyo xadgudubku meeshuu gaadhay wuxuu leeyahay نبي محمد موليد كيس إلهي بابا احتفالي با سكراف نبي لقمها الله رسول يدينك واحد قال الله يسان علماء يصدح قرنية حتى وحي مريسا ور إلهي بابا احتفال كالسمائي كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ألا إيرنا أو جيسسنا أو إن دا أدقا أو الله كعفسي يرى وروحات كل إيرنا سوى ربك oo waxaad ku been abuuranaysaa waa rabbiga oo waxaad taxriifinaysaa waa quraankii aaway alla ka cabsigii iyo aakhiriya alla la kulmaysaa ma jiro rag iska celi iyo rabbi ka cabso meel ma wada galaan
ninkaasi dagaal buu ku jiraa rag iska celintiibaa u cad laakiin rabbi ka cabsi meeshaba uguma jirto